qabyaaladdu waa maangaabnimo, qabyaaladdu waa caqli xumo, qabyaaladdu waa damiir xumo, qabyaaladdu waa diin la'aan, qabyaaladdu waa dadnimo xumo. qof damiir leh, qof caqiide leh, qof iimaan leh, qof muwaadin oo waddankiisa jecel magac qabyaalad waxba kuma dilo walaalayaal. nabigeena sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a ansaar iyo muhaajiriin ayaa midkood ansaartiina waxay yidhaaheen yaa lalansaar, muhaajiriintiina waxay yidhaaheen yaa lalmuhaajiriin. markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi abadacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum. ma sidii jaahiliyada ayaad isugu yeeraysaan, ma jaahiliyadii diin la'aanta ayaad dib ugu laabateen anigoo idinku dhex jira, ayuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam. lidaalika walaalayaal, dadka dagaaladaa hurinaya qof walbaahi kaalinta uu ka geysto gacan ku dhigle ayuu ku noqonahay. haddaad qarash ku bixiso, qarash haddaad ku bixiso waxaa tahay qofkii gacan ku dhiglaha ahaa. haddaad ku taageerto codkaaga oo qabaa'ilkaa dagaalamaya aad guubaabiso oo tidhaaho iska celiya heer hebel aad iska celiya aad tidhaahid waxaa tahay gacan ku dhiigle. nabigeena sala allahu calayh wasalam xadiiskii ibnu maajah uu warinayey wuxuu ku yidhi man acaana calىa qatli muslim walow bishadri kelima laqiya allaha maktuuban bayna caynayhi aayisun min raxmat illaah. qof muumina dilkiisa qofkii ka qayb qaata walow hal eray haafkiis ba allah ka dhigo. dil ma aadan wada dhihin, di ayaa tidhi, waad u bilowday, di ayaa tidhi, dil meeshii aad ka dhihi lahayd. ilaahay uu la kulmaa isagoo labadiisa indhood uu ku qoran yihiin qofkan wuxuu ka quustay naxariistii ilaahay, naxariistii ilaahay ayuu ka quustay. marka dadka jeeb ku dhiiglayaasha ah oo jeebka furaya dhaqaalaha ku bixinaya, weliba sida warbixin aanu ku helnay dadka taageero dagaalada qabaa'ilka ee qabyaaladda iyo jaahiliyada ku dhisan in badan oo ka mida waxay joogaan dibadahay lacagaha ka soo shubaya, qaarkoodna gudahay ka shidayaan dabkii. marka dadka jeeb ku dhiiglayaasha ah iyo dadka carab ku dhiiglayaasha ah ee dagaalada hurinaya iyo dadka qalbi ku dhiiglayaasha ah oo goobaha markay isugu tagaan dhahaya heer hebel oon annagu ka dhalannay ayaa ka dilay 20-30 maanta waan guulaysannay dhahaya, kulligood waa ahlu naar haddaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenin oo ficilkaa aysan gacanta kala bixinin. jeeb ku dhiigluhu waa ahlu naar, carab ku dhiigluhu waa ahlu naar, gacan ku dhiigluhu waa ahlu naar, qalbi ku dhiigluhu waa ahlu naar. qayb walba oo dagaaladaa qofka uu ka qayb qaato qofkii wax dilay ayaad la mid tahay.